wacan oo wanaagsan akhyaarteena sharafta badan halkaad nagala socotaan waa warbaahinta xorriyadoon online. warbaahinta xorriyadoon online had iyo jeer waxay u taagan tahay in idiin soo gudbiso warar iyo barnaamijyo kala duwan oo ku salaysan xogta iyo xaqiiqada ka jirta gobolka geeska Afrika. haddaba dhegaystow mararka qaar haddii aad dhibsato wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta xorriyadoon online waxaanu ku leenahay kownkan aadmiga jooga ruux waliba kurbadiisa iyo kaskiisu hadlayaa oo dadku waa kala maane adigoon kululaanin hala boodin ka sheekaalintaada ka qaado wixii kula wanaagsan ruux baa kohanayo ha kadsoomin dhegayste dadku waa kala maane. iminkii haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkeennii maanta. waxaan ku bilaabayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose shalay gilkii dambe weerar ku bilowday qarax gaari oo waxyaabaha qaraxa lagu soo raray oo lagu dhuftay gidaarka hore ee hotel Asasi la yiraahdo oo hadda soo loogu yeero Madiina oo magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose ku yaala sidoo kale ka mid ah hoteelada ugu weyn oo dib u dhis lagu sameeyay oo dad badan xilliyada habeenkii iyo galabtii ay ku sheekaystaan. waxaa la sheegayaa weerar dheeraad inay ka soo baxayaan weerarkaasi dad badan ayaana dhintay kuwa kalena way dhaawacmeen. wararku waxay sheegayeen oo wiiraan 30 qof ay dhinteen tiro intaasi ka badanna dhaawacyo ay soo gaareen. dhaawacyadu 60 qof ayay ka badan yihiin laakiin warka soo baxay maamulka Jubbaland waxay ku sheegeen in 26 qof ay dhinteen 56 qofna dhaawacyo soo gaareen. dhammaan 26 qof oo ay Jubbaland sheegeen inay dhinteen waa Soomaali laakiin waxaa ku jira qaar heesta dhalashada dalal kale sidaas ayaana ajaanib loogu yeeray laakiin waxay dad badan oo Soomaali ku tilmaameen nasiib darro kale. dadka dhintay oo maras ahaa ama dad shacaba ayaa waxay badankood ay u dhinteen toogasho ka dhacday gudaha hoteelka markii uu qaraxa dhacay kadib waxaana taasi ay sababtay in saacado badan oo dheeraada ama wax ka badan 15 saacadood xoogagii hubeysnaa ee hoteelka galay ee gudaha hoteelka ka dagaalamaan. xalayna dhan waxaa la sheegay in dad waqtiyada qaar ay toogasho ay u geysanayeen. ciidamada Jubbaland ayaa dadaal xoog la geliyay inkastoo waqtigu uu ku dheeraaday. kooxda weerartay oo hoteelka gashay xubno ka tirsan laamaha ammaanka Jubbaland oo la hadalna waxay noo xaqiijiyeen in muddo ka badan 7 iyo sidoo kale 10 cishaba in halkaasi ay deganayeen. kooxda weerartay waliba waxay deganayeen guri aad ugu dhow hoteelka la galay. shalay 8 duhurnimo waa shalay 2 duhurnimo ama 8 saac waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka ee Jubbaland mar ay hoteelka yimaadeen kadibna ay ku wargeliyeen inay jirto xaalad cabsi ah oo ay dhici karto in weerari uu ka dhaco hoteelkan ama hotel kale oo ku yaala magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale la sheegay in kooxda weerartay hoteelka gashay kahor inta aysan hoteelka gelin in xubno ayaga ka mid ah ay u tageen dad shacab oo hoteelka ku sugnaa kadibna ay ku wargeliyeen inay ka tirsan yihiin ciidamada ilaalada madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hoteelkana uu imaan doono amaanka hoteelkana ayaga la wareegayaan. wixii intaas ka dambeeyay waxaa la sheegay in qarax xoog loo dhacay toogashan ay barbar socotay. haddaba waa kan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida 3 qof oo Kenyan hal qof oo Canadian hal qof oo British watay 2 Mareykan iyo 3 Tanzanian. dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada. waxaa kale oo dhaawac jiray 56 qof iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kala wata gaar ahaan qaar aan Soomaali asalkooda ahayn oo 2 Shiineys ay ku jiraan oo kalluumaysataa. dadkan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo. waaya marka sidee u soo galeen maxay idin dhaheen wax waran ma jiray mudane senator? waxaa weeye soo galitaanka albaabka ayaa gaari lagu dhuftay niman maxaa ku idhaahdaa ubaysaruna meeshay galeen weliba wararka haddana soo gaaraya waxaa la sheegayaa nimankaasu guri aan ka fogeyn hoteelka oo weliba ku dhegan inay muddo deganaayeen baa weliba la sheegayaa. arrintaas anigu xaqiiqdeeda ma ogo laakiin warkaas wuu soo gaarayaa. waxaa kaloo jirta warar sheegaya in kahor intaanan hoteelka la qarxin inay ciidamo yimaadeen oo ragga wax weeraray ah oo ay dadku ku wargeliyeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ilaaladiisa ay ka tirsan yihiin oo magaaladana ku soo wajahayaan gaar ahaan hoteelkii la weeraray. warkaas ma runba? أنا تام حسيتك رأي لكن وحال حسيتك رأي إنسان وهو لأن
ciidamada Jubbaland oo wadooyinka taagan oo shaki qaba oo leeyahay waxaanu ka baqaynaa in qarax la sameeyo taas baan ayaan arkay laakiin warka aan sheegaysaanu ma hayo waayo marka waa ku garto way qaraxa dhacay way soo galeen kadib maxaa dhacay waxaa nasiib darro ah hoteelka dadkii ku jiray oo aad u fara badnaa hotel cusub uu ahaa hotel la isugu yimaado ahaa ilaa iyo waxaa fadhiyi karaysay maxaan ku idhaha dad ooba 300-400 oo qof aa dhex fadhiyi karaysay meel lagu baashaalo oo dadku ku sheekaystaan bay ahayd dadkii bay siday xabad yani siday doonaa lagu rideen kabacdina guryihii bay galeen dadkii guryaha ku jirayna way ku laayeen waa garta ciidankii Jubbalandna dagaalkii uu kolkaa galay ilaa iyo xalayna dagaalku saas u socday nasiib wanaag maxaan ku idhaahdaa khasaaro intaa uu ka badan lahaa ciidankii ayaa degdeg waxay go'aamo u qaateen in ay dabaqii koowaad iyo kii labaad intay ka gudbaan dabaqa saddexaad ay galaan oo kor dabaqii ugu sarreeya ay galaan nimankiina ay u diidaan inay dhaqdhaqaaq badan sameeyaan oo ay dadkii ku laayaan guryaha ku jireen sidaas baan aad iyo aad ugu ammaanayaa ciidanka Jubbaland dadaalka waxaa la geystay waayo marka waxaa la ii sheegay inaa ka mid ahayd dad badan oo laga soo badbaadiyay goobta uu ku xayirmay marka sidee ayay ciidamadeedii kugu yimaadeen oo idiin badbaadiyeen alla ka suko ma aana ku jirin warkaas waa war kale warkaas waqtigaa wuxuu dhacayaa waqti aad ugu dhowaan ka baxay kolkuu shilku dhacayna waxaa wasaadiyo badan oo ay qoreen Axmed Xaashi iyo rag Soomaaliyeed oo iyaguna mataqaanaa ama baarlamaanka ama ahmiyadda inaanu ku jiro kuma jirin banaanka ayaan markaa hoteelka ka joogay waa garta waxaa dareenkaas uu dhalinayaa in ay jirtay maxaan ku idhaahdaa ama rabitaan ha ahaato ama ku talagal ha ahaatee dad badan oo aan qayra mas-uuliyiin oo ay lahaayeen oo ahaa maxaan ku idhahdaa dad badan oo anuu ka mid ah inay meesha ku dhintaan dad ka shaqaynaya ibaadayaan aaminsanahay inay jireen waya marka aad baxayseen adiga iyo xubno kaleba ma waxaa u baxdeen tuhun ah in uu weer imaan doono oo ciidamaduba ay sheegeen mise si caadi oo liina idin dhamaado waad baxdeen maya si caadi ah oo howlaha ku saabsan baan u baxnay wax tuhun ah oo aanu kolka anagu lahayn hadda ka cararnaysa ma ayna jirin dar caadi ah howlba niman aanu ballan lahayn baan anu waaday waayo marka dabcan meesha dad Soomaaliyeed oo qiimo leh ayaa ku dhamaaday oo dhammaantood ba ahaa maras haween iyo ragna isugu jiraan carruurna ku jiraan waa la sheegayaa si guud maxaa kaaga baxa marka weerarkaas oo aad u xanuun badnaa waxaa iga baxay waa kala fikrado kala gedisan ay soo baxay midda ugu nasiib darrada ah oon aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed ee Soomaaliga ahaa oo loo kala liisgaraynayo waxa weeyaan waa American waa Chinese waa Tanzanian waxa weeyaan waa Kenyan waxa weeyaan waa Australian horta taas waan arkay waa gartad Soomaaliyeed jinsiyada kale la siiyay oo jinsiyada kale qowmiyadaha meesha ku dhibaatooday baa laga hadlayaa oo liiskooda saas loo qoray waa gartad taas horta naxdin bay ugu rideen waa arrin nasiib darro ah waa mid haye midda kaleeto dadkaas meesha ku dhammaaday dad ma ahayn dambi galay dad wanaagdoona bay ahaayeen waxay ahayd dad doonahaya inay dalka u shaqeeyaan waxaan la kulmay in nimaan aabihii aqaanay hotel gurguurta ninkii lahaa wiil uu dhalay baan la kulmay oo meeshaa ku bartay niyadsan oo wanaagsan buu lahaayo inuu Soomaaliya wax ka qabta ayuu doonayay waa garta dad badan oo sidaas oo odayaal oo inay wax hagaajiyaan doonahaya baan arkayay dadkii aan meesha kula kulmay oo wax ku oolka ahayd oo meesha ku dhintay waxay ahaayeen dadkii Soomaaliya badbaadada u noqon lahaa ee berita hagaajin lahaa Soomaaliya